iyadoo ay baryahan dambe abaar ba'ani ka jirto guud ahaanba gobolka Sanaag isla mar ahaantaana ay degmada Garada iyo deegaanada hoos yimaada gebi ahaantoodba ay soo food saartay xaaluf iyo xaalad biyo la'aaneed dadka reer guuraagana ay baryahan dambe la soo kulantay kala hayaan ayaa saaka waxa soo gaaray degmada Garada galbeedka gobolka Sanaag farasaabka gobolka Sanaag Axmed Jaamac Cabdi Falay oo kormeer indhaindhayna ku marayay guud ahaanba gobolka Sanaag waxaana dadweynaha reer Garada kala qayb galay salaadii roob doonta ahayd intaasi kadib ayaa waxa uu kulan xog waraysi la qaatay guddiga abaaraha iyo gudoomiyaha degmada Garada oo ugu horeyntiina ay halkaas uga warbixiyeen xaaladda guud ee degmada laga sheekiyay waxa jirta xaalad abaareed oo aad iyo aad u adag runtii ayaa jirta waxaanu maray meelo badan oo waqooyiga deegaanka iyo koonfurteedaba ah xaaladda aanu aragnay waxa weeye waa xaalad aad iyo aad u baahan dhinaca xaalufka marka la eego dhinaca biyo la'aanta barg marka waxba uma hadhaan mar haddii xooluhu ka fashkuroobeen waxba u hadhi maayaan oo xooli waxba may hadhin waxaan anigu kolkaan xog badan hayo waxaan isteedahay dadkii iyo xoolaha haddeer dadkaaba liita aad iyo aad dadkaasi liita waayo dadka xooli way kala badh imanayaan xooli wixii hadhayna waa ka finish marka qofkii bini aadanka xooli la joogay waxbaba kaba noolaa oo waa tabcaan aad iyo aad buu liitaa baahi buu liitaa haraad buu liitaa dabeerihuu raan jiray degmada guddiga abaaraha iyo maayirka degmada Garada Faarax Aadan sidoo kale isna waxaa dhinaciisa hadalka soo xidhay farasaabka gobolka Sanaag Axmed Jaamac Cabdi Falay isagoo ugu baaqay dowladda Soomaaliland hay'adaha caalamiga ah iyo dadweynaha gobolka Sanaag qurbajoog iyo qolqoljoogba inay soo caawiyaan xukuumadda iyo guddiga abaaruhuba waa heegan iyagoo cagahooda ku socday gobolka imanaya meelaha ugu habboon na waynu sii insha allahu koobi doonaa waynu geyn doonaa waxaan leeyahay dadka ilaahay wax uu siiyey ama qurbaha ha joogaan ama dalka ha joogaan Somaliland ha noqdaan ama qayro ha noqdaan waxaan leeyahay warbixiya wixii ilaahaydu ku deeqay oo dedejiya dadka maanta tabaalaysan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraanka ku yiri lan tanallahu birru hatta tufiqu ilayhi warlibaanta iyo gaari dadka ay abaaruhu aafeeyeen faraxa Cabdi Nuur halka TV Garada